maanta oo bishu ay afar ahayd waxaa halkan ka dhacay shirarkii soo socday mid ka mid ah sidaad ogtihiin wuxuu soo bilowday 25 bishii hore kadibna waxa waaye 1 bishan Maarso ayaa lagu labeeyay kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bishu afar ahayd shirarkaas waxay ka dambeeyeen baaqi Prime Ministerku uu soo saaray nabadeed uu soo saaray ku saabsanaa in wada hadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo hooyay wada hadalladaas labadii wareego hore waxyaabaha laga soo hooyay waxaa ka mid ahayd in dhacdada 19 February laga heshiiyey guddi loo saaray mudaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sida aad ogtihiin dawladdu waxay qabtay in mudaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xiriira caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkeysteen in la qabto mudaharaad dawladdu iyadoo tixgelinaysa wada hadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuraya waxay ogolaateen in mudaharaadkii la qabto kadibna waxaa loo gudbay xagee lagu qabanaa iyo qaabkee wada hadal la galay haddana mudaharaadkii waxa ay dhaheen waxaan annagu dawladdu waxay soo jeedisay goobo fara badan oo amniga la sugi karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkeysteen in aysan diyaar u ahayn inay ku qabtaan mudaharaad meel aan ahayn meesha la yiraahdo daljirka haddana mar kale dawladdu arrinkaas way fulisay waxaa lagu raacay daljirka in lagu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadeedii arrimaheedii waa lagu jiraa weli lama soo dhammaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbo caawa shirka loo fadhiyay waxa uu ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhaxaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 September iyo 16 hadeer Baydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu beeriyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dawladdu ama xukuumaddu mas'uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beerinayo haddii kale go'aankeeda aysan dawladdu aysan xukuumaddu iska lahayn marka arrintaasi ayada ah ayaa waqti dheer runtii qaadatay ayaguna ku adkeysteen ilaa in la furo xukuumaddan iyo Prime Ministerku hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taala xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka go'in horena aysan u dhicin in la furo madalihii ka horeeyay tanuna furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daa faraha badan keenay si kasta waxa la isugu dayay oo Prime Ministerku dulqaad oo muujiyay waa dareemi kartaan caawa 8 baan halka fariisana ama 2 saac sidii loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adigu 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa la isku dayay in laga qanciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay aysan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor waa la socotaan Prime Ministerku inuu yiri asagoo la taagan madaxweynayaasha dowlad goboleedka qaarkood inuu yiri inay bilaabato inuu jeclaa inuu safar u galay ha yeeshee bilaabashada doorashada iyo wax ka qabadkeedu waa hawl aan xukuumaddu runtii aysan carqalad ku ahayn oo meel kale laga carqaladeynayo taasna waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ay og yihiin intaa waxaa dheer baaqii Prime Ministerku jeediyay ee wada hadalada ku furmeen wali waa sidiisii gogoshi waa fidsan tahay wada hadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin laguma goyn karo wareege badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo
wixii wareeg lagu xalli waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsan annagu in wada hadalku sidaa ku xirmay waxaan aaminsanahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sideera siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax hal habeen inta la isu yimaado isla habeenkaa la go'aamin karo mar kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabadeedu furan yihiin wada hadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii la isku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan oo weli aan la bislayn karo ayaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wada hadalka iyo baaqa bare ministerka iyo dawladda guud ahaan iyo wada hadal ku diirsatayna waxaan mar kale ugu baaqaynaa in ay cid alla cidii wada hadalka ka muujisa cagajiid inay culays soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxa waaye waxaan ku soo celinaynaa wada hadalka iyo baaqa nabadda ee bare ministerku hogaaminayo inuu sidiisa yahay habeen iyo maalin aan u dhafrayno gacmaheenu furan yihiin wax kasta oo danta Soomaaliyeed ku jirtani si wada hadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan ku soo dhaweynayno aad iyo aad u mahadsantiin